madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa lagu wadaa in uu maalinta berri hortago xildhibaanada golaha shacabka ee dalka Soomaaliya sida lagu sheegay war qoraal ah oo lagu baahiyay bogga rasmiga ah ee golaha shacabka ay ku leeyihiin dagaalka internetka. Madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa hor iman doona golahaasi waxaana la filayaa in xildhibaanada aqalkaasi u jeediyo khudbad dheer. madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa khudbadiisa si weyn loogu dhagtaagayaa maadaama ay berri ku buuxdo maalintii la isugu soo noqonayay wajiga saddexaad ee shirka Dhuusamareeb uga socda xukuumadda federaalka iyo dowlad goboleedyada qaybta ka ah dowladda dhexe. khudbadda madaxweynaha ayaa waxaa sidoo kale sugitaankeeda xiisa u sii yeelaya maadaama aanu la socon ra'iisul wasaarihii ay soo wada shaqeeyeen ee Xasan Cali Khayre arrinta doorashooyinka qof iyo codka ah ee wali ku taagan yahay madaxweynuhu iyo qodobo kale. sidoo kale khudbadda madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa la filayaa in uu ku soo qaado wadahadaladii dhawaan Somaliland iyo Soomaaliya ku dhex maray magaalada Djibouti. inkasta oo gudoomiyaha golaha uu martida u yahay madaxweynuhu uu ku jiray xubnihii ku metelaya shirkaasi xog badanina aanay ku seeganin xildhibaanada aqalkaasi. si kastaba haatee mowqifka madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ee salka ku haya in ay dalkaasi ka dhacdo doorashooyin qof iyo cod ah ayaan la ogeyn inuu kaga tanaasuli doono khudbadiisan maadaama oo ay mucaarad ku arkaan in aanay wakhtigan suurtagal ahayn in ay Soomaaliya doorasho ay dadku codkooda dhiibtaan ka dhici karin maadaama aanay jirin isku halayn dhinaca amniga ah. dowladaha taageera geedi socodka dimuqraadiyadda ee Soomaaliya oo ay ugu horeysa Mareykankuna ay ka digeen muddo kordhin loo sameeyo xukuumadda. diyaaradii ugu horeysay muddo 14 sano ah oo sida rakaab shacab ah iyo subaxnimadii hore ee Jimcihii maanta ka duushay garoonka diyaaradaha Daynile Airport ee degmada Daynile ee gobolka Banaadir. waa bilowga duulimaadyada shacabka ee gobolada dalka Soomaaliya oo hadda si rasmi ah uga furmay garoonka diyaaradaha oo amnigiisa aad loo adkeeyay. dadka rakaabka waxa loo dhameystiray dhammaan shuruudaha duulimaadyada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ay dejisay inta lagu guda jiro xanuunka COVID-19. qaar ka mid ah dadka rakaabka oo la hadlay Universal TV ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin qaabka loogu adeegay intii ay garoonka ku sugnaayeen. magacaygu waa Dr. Bani Cabdiraxmaan Mubaarak oo degan magaalada Muqdisho oo ka howlgala magaalada Baydhabo. Dr. sidoo aragta maanta inaad ka duulaysid garoonka diyaaradaha ee degmada Daynile. runtii aad baan ugu faraxsanahay farxadeeduna lama soo koobi karayo. maanta inaan noqdo ama nasiib u yeesho dadkii ugu horeeyay ee muddo badan u xidhnaa garoonka Daynile. runtii waxa igu dambeysay 2003 duulimaad aan ka soo duulay magaalada Eldoret. maantana waan ku faraxsanahay waxaanan u hambalyeeynaya dhammaan dadkii ka shaqeeyay in garoonka duulimaadka dib looga bilaabo. ilaahina waxaan ka rajeynayaa in uu noqdo garoomada ugu caalamisan waddanka Soomaaliya. shaqaalaha dhammaan waxaad moodaa in u tababareen shaqada ay hayaan heegan badanna ugu jiraan. runtii ilaa aan ka soo duulin ilaa aan ka nimaanay meeshii aan ka soo qaraacnay baski ilaa diyaaradda shaqaalaha dhammaan in waxa way biyo cabitaan la siiyay in mar walba si heelan loogu shaqeynayo in runtii ay yihiin shaqaalaha ka shaqeynaya shaqaale xirfadan ay ka shaqeynayaan in badan ku soo dhex jiray. waxaan u rajeynayaa shaqaalaha inay shaqadooda Ilaahay ku asturo. garoonka Daynile amnigiisu 100% weeyaan. magacaygu waa Xafsa Cabdilaahi Cabdiraxmaan. maasha Allah waan ku faraxsanahay maanta aan ka dool rabo dadka ugu horeeyay oo ka doolay garoonka Daynile. waa ku faraxsanahay. kulankan looga hadlay ammaanka oo ka dhacay xaafadda Horseed ee magaalada Garowe waxaa ka qayb galay maamulka gobolka Nugaal kan degmada Garowe taliska saldhigga maamulka xaafadda Horseed iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool xaafadaas. kulanka ayaa looga hadlay sidii xaafaduhu uga qayb qaadan lahaayeen sugitaanka amniga magaalada gaar ahaan moobil furashada iyo la dagaalanka maandooriyaha ulana shaqayn lahaayeen laamaha amniga. gudoomiyaha xaafadda Horseed Muxubba Maxamuud Yuusuf oo kulanka soo agaasintay ayaa ugu horeyn ka warbixisay. marka waxay inaga xaafadayadu waa fiicantay maasha Allah. dhalinyaradu waa shaqaysaa amniga waa ka shaqaysaa. inta hooyooyinka ah waxaan leeyahay nin walba ilmihiisa wuu yaqaanaa gabadhiisa waa yaqaanaa wiilkiisa waa yaqaan. waxa weey ilmuhu markuu xaafadda ka baxay hooyadu waa inay la socotaa aabuhuna la socdaa. waxa weey hadayna inagu amni aynu ka shaqeyn cid inooga ma shaqeynayso cid kalena inoo imaan mayso. waxa weey gobol inagu aynayna amniga ka shaqeysano. marka waxaan leenahay amnigeena aynu xijisano alxamdulillah rabbil caalamiin. amni bayna haysanaa wiilasha yaryar oo xaafadaha kale oo moobilada furanayana dawaananu hadaan Horseedna waaba iska qabanaynaaba. dhalinyarada ayaa ku filan
oo annagaa ku filan waanu qabanaynaa ciidankuna maasha allah ciidankuna si fiican bay noola shaqeeyaan habeen walba waa noo yimaadaan nabadoon abshir cali halow oo ka mid ah cuqaasha magaalada ayaa ugu baaqay bulshada xaafadaha magaalada garowe inay ka qayb qaataan sugitaanka amniga xaafadda horseed waxaa degan dad badan ammaankeedu haddeer markaan nidhaahno ammaankeedu oo shirkan uu ku saabsan yahay ammaan in lagaga hadlo ammaankeedu markii loo eego xaafadaha kale waxaan isleeyahay waa xaafadda ugu horraysa weeye dhinaca ammaanka ammaanku waa fiican yahay xaafaddu haddana waxaan rabaa oo inaan idhaahdo intaa in laga sii badiyo washington baa waxaa la yidhi hubka waa la sitaayo maalin walba waxbaa lagu dilaayo dadku bini aadan weeye haddii layska joogo wax way iska dhacdhacayaan oo qof khaldan lama waayayo laakiin waxaa la rabaa in attentionkeeda la leeyahay laga shaqeeyo waa soo dhegmin aminka waana ka shaqaynaa odayaal ahaan hooyooyin ahaan gabdha ahaan dhallinyaro ahaan xaafaddan waa xaafad isku xiran wey waxaan rabaa inaan idhaahdo booliiska sidaan horey ula shaqayn jirnayba aan la shaqayno shirkan jaraa'id oo gelinkii dambe ee maanta magaalada baydhabo oo xarun kumeel gaar u ah dowlad goboleedka koonfur galbeed uu ku qabtay wasiirka amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed isxaaq cali subag waxa uu kaga hadlay ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya oo maanta la wareegay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan degmada Kunturwaarey ee gobolkaasi wasiirka ayaa ugu horeen waxa uu ka hadlayaa khabarka ay ka maqleen la wareegitaanka Kunturwaarey iyo waliba ciidamada halkaasi gacanta ku dhigay ciidamadii nabadiidka oo ay muddo galanta ka hayeen degmada Kunturwaarey oo ilaahay ka guulay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kala lahayn ciidamada Amisom yama ka guulaysadeen intii Kunturwaarey ku wareegan cadowgii muddo haysadii oo muddo dhibaato badan ka hay ciidamadaas oo geeko jimaada si nabadgelyo kala wareegeen degmadaas oo dadweynihii oo degmada deganay iyo dhammaan dadkii ganacsatadii shacabkiina eedan dhawaayeen isxaaq cali subag wasiirka amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa dhanka kale waxa uu sheegay in howlgallada koonfur galbeed ay sii socon doonaan isla markaana dhawaan sida uu warka u dhigay deegaanada kale ee gacantooda ka maqan gacanta dowladda lagu soo celinayo degmooyinka badanaa walku saari gacanta cadowga al-shabaab dowladda ee gacanta ka hayta haddii lagu reebo degmada Sablaala yaa gacanta cadowga al-shabaab weli ka hirsan taas insha allahu tacaala qorshigii oo dib liin ku xoreeyay fadi dareera waan may rajeynay mar dhow Sablaala intii dowladda loo wareegi doonto biidhnillaahi tacaala ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa maanta ilaa iyo shalay waxay burburin ka wadeen qabuuraha qaranka ama qabuuraha Cabdirashiid oo ku yaala degmada Hodan gaar ahaan xaafadda Taraboonka ciidamada ayaa la sheegay inay burburiyeen ilaa iyo 50 qabri oo ku yaala halkaasi kuwaas oo meydadkii ku xabaalna ay banaanka keeneen sida ay noo xaqiijiyeen dadka deegaanka waxaana burburintaasi loo adeegsaday gaadiidka wax lagu burburiyo ee loo yaqaano cagaf-cagafta ehelada meydadkoodu ay ku aasan yihiin qabuurahaasi ayaa sheegay inay waayeen qabriyadii lagu xabaalay dadkooda kadib markii dhulka lala simay qaar ka mid ah qabuurahaasi waxaa ka dhacay maanta qabuuraha qaranka ee Taraboon in la kala gatay iyo meydadkii oo la bixinayo dhibaato saa'ida iyo shacabka oo isku soo baxay ilaa haddeerna qalalaasihii iyo dhibkii way taagan yihiin waxaana la sheegay in dawladdu ay middaa raalli ka tahay qolo walba huna ay og tahay lafaha meydkuna ay bannaanka yaallaan ilaa haddeerna dadkii shacabka iyo masaakiinta lagu wado xabad iyo dhibaato halkaas oo ay ka dhacday kacdood aad u daran iyo mudaharaad qolo walba oo caalamka waxaan u sheegaynaa qabuurahaas in aanan raalli ka ahayn haddii aan nahay ummadda Soomaaliyeed waxaa la soo bilaabay shalay galab ilaa hadda ayay socotaa maadada koowaad waxaan deganahay Taraboon waxaa ceebaha in dawladda Soomaaliya ay qabuuraha ciidamada dalka Soomaaliya ay ku duugan yihiin iyo dadka shacabka in dib loo faago oo dadkii qoryo laga soo bixiyo waa madnuuc waxaan u aragnaa qalad shacabkana waana ka soo horjeednaa waxaan ka xunnahay in qabuurihii la kala iibsado qaranka meydadkii banaanka loo soo saaro
iyadoo wax ka tashaday iyo wax ogaal wax digniina aan la bixin meedka la baxa xataa danbay noo ahayd meedka la baxa xataa danbay noo ahayd wax meedka la baxana ilaahay xitaa maanaan arag dadkii meedkoodu meesha ku duugnaayeen shacabweynihii Soomaaliyeed oo isugu yimid xabad ayaana ka bilaabatay inkasta aniga ehelkayga ku duugan dhammaan inta ku duugan waa ehelkayga nin Soomaaliyeed baan ahay insha Allah alkariim ilaahay waxaan ka rajaynaynaa midaan inuu ilaahay noogu soo bedelo lama oga sababta dhabta ah ee ka dambaysa in qabuurahan la burburiyo hase yeeshee dadka deegaanka waxay idaacadda kulmiye u sheegeen in halkaasi la doonayo in laga dhiso guryo qaybna la bandhiga dood wadaagga bulshada rayidka ee hanaanka dhismaha golaha deegaanka degmada Gaalkacyo oo ay fulintiisa iska kaashanayeen wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib-u-heshiinta dowladda Soomaaliya iyo hay'adda AISA oo kamid ah hay'adaha xilligan ka saacidaya bulshada Gaalkacyo helitaanka golo deegaan oo sharci ah isla markaana waafaqsan habraaca dhismaha golayaasha deegaanka ee wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa Gaalkacyo loogu soo gabagabeeyay muddo 3 cisho ay ka soconayay iyadoona ay ka qayb galeen xubno matalaya ururada bulshada Gaalkacyo ee Galmudug dood wadaaggan ayaa muddadii u socday bulshadu waxay aragtidooda ka dhiibanayeen ilaa 16 su'aalood kuwa oo dhammaantood ka turjumayay sida lagu heli karo golo deegaan oo loo wada dhan yahay isla markaana keeni kara in bulshada qaybahooda kala duwan ay ka mid noqon karaan maamulka degmada Gaalkacyo waxaana ka qaybgalayaashu ay si taxadar iyo rabitaan nidaam sharci ah in la helo ay aragtidooda uga dhiibteen su'aalihii la weydiiyay aniga ra'yi kuleyto sida oo macnaha dastuuriga ah qofku waxa markii xildhibaan golo deegaan inuu qofku laanta ay degan tahay xaafadda uu degan yahay qofku uu ka soo baxo oo ay ka soo doorato sida ogtiinba golaha deegaanku waxa weeye degmada Gaalkacyo iska leh waxaana ku xeerartan 40 kilomitir isku weera hadii la yiraahdo habbeelad hamarana waxa fiican 40 kilomitir in laga soo galo hadday noqoto deegaan in la yiraahdana 40 kilomitir buu ka dhaxayaa waxaan dhigi karnaa marka hadda heer qaran ma joogno laakiin waa ka culustahay heer qaran dawladda hoose markii la yiraahdo waa tiir dhaxaadkii oo asaaska laga sameyn lahaa marka waxa inta badan dadkii u bateen wax la dhahayo 4.5 waa la qaybiyay hadda jaa waaqicada la sameeyay laakiin aniga maymuun ahaan waxaan leeyahay maadaama lagu saleeyo beelo oo xisbiye aan wali gaarin oo beelo lagu saleeyay beelihii baan leeyahay hal xaqiijiyo oo hal siiyo shuruudo ama criteria maana wax qorshaha loo sameeyo dhalinyarada waxaan dhigi karnaa waa laf dhabarka wadanka sida la wada og yahay waana dad jecel nabadda iyo markasta ka qayb qaadashada deegaanada waxaan dhihi lahaa inay ka soo muuqdaan waliba si xoogan uga soo muuqdaan baan jeclaan lahaa si loo hagaajiyo dhisidii ama deegaanka shaqadiisa iyo horumarkiisa loo hagaajiyo haddii ergadu ay beelaha ka imanayaan inay haystaan qorshe cad oo ay wax ku soo dhisaan oo ay maraan hanaan marka loo qorsheeyo la siiyey si ergada beeluhu ay ugu yimaadaan iyo inay beeluhu ayagu intay isku yimaadaan ay samaystaan waxay heshiis ku yihiin oo ah in ergada la xulo ayadoo weliba dhinac qof walbaba lala tashanayo oo haddii dhalinyarada noqoto aqoonyahanada noqoto culummada noqoto haweenka noqoto wax soo xul ah oo doorashadana ay tahay mid qarsoodi ah bandhiga dood wadaagga bulshada rayidka ee dhismaha golaha deegaanka Gaalkacyo ayaa qayb ka ah qorshaha fahamsiinta bulshada doorka ay ku leeyihiin dhismaha golaha deegaanka degmada Gaalkacyo iyo faa'iidada ay ka dhaxlayaan dhismaha golo deegaan oo sharci ah